kulanti wanaagsan dawadayaasha xishmada iyo qadarinta inaga mudan meel kastoo aad nagala socotaan ee dunida dacaladeeda waa saaxiibadina shabakada wararka ee shacabka TV oo idin soo gudbinaysa laba wararkii ugu dambeeyay sheekooyinka xiisaha badan ee siyaasadda Soomaaliya iyo dhacdooyinka quseeya Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale qaybtan waa qayb kale aad u xiiso badan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya falcelinta siyaasiyiinta sida u arkaan xalka siyaasadeed ee dalka iyadoo sidoo kale aan eegi doono dulanka ay dawladaha qaar ee caalamka ku hayaan qarankan Soomaaliyeed oo ay wada eeganayaan dalalka caalamka oo qol waliba dana gaar Soomaaliya ay ka leedahay hadaba idinkuna afkaartiina amba ra'yigiina saliimka maankiina ka guuxaya ayaad waxaad ku soo gudbi doontaan qaybta hoose ee faalooyinka iyadoo ay doodayaduna ku saabsan tahay kuma saxan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihi shaqada laga joojiyay Maxamed Xuseen Roble imankana wararka aan ku helayno ra'iisul wasaaruhu xaalad quusa inuu ku sugan yahay oo isdhibada kadib markii qaar kamid ah dawladaha caalamka ee qaybna ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay ay Roble qadka telefoonka ama internetka ay kula shireen sidaas ayaa inoo balanahay waxaan ugu gudagalinaa tafaasiishaasi iyo sidoo kale falanqeynta guud iyadoo barnaamijkeenan falanqeynta uu qayb ka yahay wadani siyaasi Soomaaliyeed oo rugcada ah horeyna xalka la gedisan maamulada Soomaaliya gudaha dalka ugu soo qayb qaatay dhismahooda iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Idris Cabdulle Marcad Cabdiraxmaan marka hore inta aanay barnaamijka kugu soo dhaweynin hadii aan dul istaago xaaladda siyaasadda Soomaaliya wararkan helena waxa ay tilmaamayaan in kulamadii ugu dambeeyay ee lagu kala dhaxadinayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda la filayo in ay guulo ku soo gabagaboobaan kadib markii qaar kamid ah dawladaha sida weyn u taageera Soomaaliya ay kiiska soo fargeliyeen ee khilaafka iyadoona Maxamed Xuseen Roble la xasuusiyay mas'uuliyadda ugu weyn ee saaran inay tahay howlaha doorashooyinka sida daraadeed hadii uu howsha doorashada ka mashquulo inuu la mid yahay ra'iisul wasaaruhu kooxaha doorasho diidka ah sida darteed waxa lagu qanciyay baa la leeyahay ra'iisul wasaaruhu in uu dastuurka dalka u hogaansanaado oo uu san sheegan awoodaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya nidaamka doorashooyinka dalkana dib u dhac hor leh uu san ku keenin waadna filaya inaad aragtay Cabdiraxmaan khudbadii xisaaleed uu jeediyay Saciid Cabdullaahi Dani ee uu runta ugu sheegay ra'iisul wasaaraha iyo qoliyaha siyaasiyiinta ee doorashada Soomaaliya dib u dhaceeda mar kale ka shaqeynaya waa inoo sidaas marka hore gacmo furan ku soo dhawow xaalka sidoo kula muuqdo khilaafka sida u qaboobay iyo isdhibada muuqata ee Roble walaal aad ma san tahay waa dhawahay waxaan rajaynayaa sida aad sheegtayba in uu khilaafkaas xal ku soo dhamaado sidaasaan rajaynayaa insha Allah taala waa gartay dabcan waxa muuqatay dawlado siyaasadeed iyo in ay soo ifabaxeen dalalka qaar ee cadawga ku ah Soomaaliya oo rabay in ay markale Soomaaliya dib u dhaceeda ka shaqeeyaan iyagoo iska hor keenayay madaxdii siyaasiyiinta Soomaaliyeed tusaale ahaan Roble oo markii uu tagay Kenya lana kulmay Uhuru Kenyatta deetana uu safar ku tagay Masar iyo Imaaraad iyo meelo kale kadibna khilaafkan uu ku sameeyay shaqadii qaranka marka arinkan maxaa kaga muuqanaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu isku bedelay mid u shaqeynaya dana shisheeye inay siyaasi ba tahay oo khibrad ku filan haysta runtii horta marka hore haddaan ka hadlo khilaafka adduunyada sideedaba khilaafka meel u wanaagsan yahay ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ummadiisa kala yaqaano ummadiisa garanayo markii uu ka hadlayo wuxuu yiri war hadoodina oo ha iskhilaafina haddaad iskhilaaftaan waxa imaanaya in awoodiina iyo midnimadiina ay tagto ay dhibaato gaarto marka horta khilaaf ma wanaagsano markan soo dhaadhaco raggan oo iskhilaafsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo sida waxay noocyada sida loo falceliyay asliyan wariya bani aadamka uu kala aqli wanaagsan yahay waa kala nin wal cid walba priority meeyaysiisa bani aadamka qaar waxay ku mashquulaan shakhsiga qofkaan ay ku mashquulaya farmaajo qaldan iyo roob la saxan ama ay ku mashquulaa qofna wuxuu ku mashquulaa situationka ama nidaamka markaas jiro oo ama dunida ka jiro ama markaas ka jiro marka waxaan eegaynaa marka annagoo aan ku mashquulin labadooda
waxaan ku mashquulaynaa maxaa jiro horta maxaa keenay khilaafkan waxaa keenay runtii 4 sano oo madaxweyne Farmaajo dawladaha caalamka wixii ay ugu barteen wadanka Soomaaliya bay ka waayeen waxay ka waayeen inay faraha la soo galaan ay u taliyaan oo ay la hadlaan oo ay wixii rabaan ka dhex samaystaan gudaha Soomaaliya ka waayeen 4 sano oo madaxweyne Farmaajo wuxuu anagu dawladna xagga naga istaaga uu ka diiday marka sidaa darteed dawladihii waxay ku mashquuleen in ay kala furfuraan oo Farmaajo ay colaad u abuuraan oo ay mucaarad xooga sameeyaan oo dhibaateeyaan waxa la socotaa taasi ku rumaynayo oo runta ku sheegayo in dawladda Kenya aan diriska nahay in ay ku dhawaaqday markii xilliga doorashada bilowgeeda muddaxeedkii dawladda ay dhammaan rabay waxay ku sheegeen oo ay fagaarayaal ka sheegeen in ay ka shaqeynayaan in qof ay wataan uu soo baxo marka taas waxay keenaysaa Farmaajo inay qoys ka taagan yihiin marka waxaa kale ku tusinaya dawladda liiraado Imaaraadka Carabta oo muddo badan ka shaqeysay waxay isku dayday isbahaysi maamul goboleedyada ah oo Kismaayo lagu sameeyay inay dhaqaale badan ku bixisay oo ay ka shaqeysay in isbahaysigaas uu shaqeeyo Farmaajona maartay muxuu ahaa lagu qabateeyo oo lagu carqaladeeyo xukunkiisa iyo nidaamkiisa marka waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay keenayaan iska hor imaadka iyo khilaafka iyo waxaas abuuray marka dibindaabyadaas ay dawladaha shisheeye dhigayeen dadna way ku dhacayeen dad baa ku dhacayay oo dagankaas ku dhacay dadna way ka soo horjeesanayeen marka isagu marka Farmaajo iyo tiimkiisa muddo dheer waxay la dagaalamayeen situationkaas jiro oo dibindaabyadaas jiray ka shaqeyn ay ka dagaalamayaan ama Arab xigta ka yimaado ama Afrikaan ka yimaado ama muxuu ahaa ka yimaado galbeedka ka yimaado marka waxaa kaloo intaas jiray dawladaha caalamka iyaga laftooda waxay ku dagaalamayaan dawladda Soomaaliya in ay Soomaaliya ay noqoto qolo walba ama dawlad kasta waxay ka shaqeynaysaa in iyada ay gacanta ku hayso oo aan looga hoos marin waa gartay marka haddaan ku weydiiyo halka ayaa ka dhaxgalayay qoliyaha siyaasiyiinta marka ee gudaha haddii yihiin garabka madaxweynaha uu hogaaminayo ee dawladda ka tirsan ama aan ka tirsaneen iyo garabka kale ee banaanka jooga qaarkoodna isla dawladda ka tirsan ee isla dawladii ay ka tirsan yihiin mucaaradaya yaa masaalixda ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaya isleedahay runtii marka aad fiiriso oo aan sida tiimka oo Farmaajo kuma mashquulsano hebel iyo heblaayo kuma mashquulsano waxay ku mashquulsan yihiin dibindaabyadaas dawladaha caalamka ay ka shaqeynayaan sidii uu u wajihi lahaa oo gacanta loogu qaban lahaa ayuu ka shaqeynayaa galbeedka waxay u qaybsamaan 3 group oo galbeedka u qaybsama ayaa wadanka Soomaaliya dagaal ugu jiro inay la wareegaan waa dawladda Mareykanka oo doonayso in ay gacanta Soomaalida ay ku jirto gacantooda ku jirto reer Europe oo iyaga dhaqaale badan baxsho doonaya in iyaga aan looga hoos marin Ingiriiska oo iyagana hadda kooyi maxaa yeelay awal waxay ku jirta midowga Yurub ay ku jireen maadaama midowga Yurub ay ka baxeen waxay rabaan awood oo hore u lahayn jiray inay soo cistaan wadanka Soomaaliya marka maadaama Britain markii hore qubadda leed xitaa Mareykanka ay soo gumeysteen dawladda Ingiriiska marka waxay ka shaqeynaysaa inay soo cisata awoodeeda iyadoo taas waxay soo martay marka wadamo badan oo Afrikaan ah oo Kenya ay ugu horeysay ay soo maraysaa sidii ay masaalixdeeda ay u gaari lahayd marka caqabadaha dagaaladaas oo dhan oo aan ku sheegay oo soconayo oo marna Afrikaan la soo marayo marna Carab la soo maraya ayaa dagaalka Soomaaliya sidaas ku wajahay dagaalka wuxuu u qaybsamaa dagaal siyaasadeed dagaal military dagaal dhaqaale ayuu u
qaybsama carabta oo kale dagaalka dhaqaale waxaa ka mid ah ama dagaalka istiraatiijiyad waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ku taalo wadamareen oo caalami ah ku taalo ayaa waxay dowladda Afrika oo Soomaaliya ay leedahay aad iyo aad marka waxay ka shaqeeyeen dowlado badan in masaalixdooda ka fashadaan tusaale dowladaha carabta waxaa ka mid ah dowladda liidada Imaaraadka Carabta haddii dhulkan Soomaalida geeska Afrika ka soo bilaab Djibouti ilaa intii Kenya laga gaaro haddii ay nabad noqoto waxaa shaqeyn weynaya oo khadka ka baxaya dekada Imaaraadka Carabta ee Dubai ku taala ayaa shaqeeyada joogsanaysa marka waxaa loo soo wareegaya wadanka dhinaca Soomaalida loo soo wareegaya si aysan u shaqeynin waxay ka shaqeysay Imaaraadka in la wareegto dekada Djibouti in la wareegto damada ku fashilantay dekada Djibouti oo dacwad maxkamadda caalamiga gaartay dekada Boosaas in la wareegto waxay ka shaqeysay dekada Soomaaliland Hargeysa waxay ka shaqeysay Soomaaliland Hargeysa oo way la wareegtay waxay ka shaqeysay dekada Kismaayo marka dekada Kismaayo ayaa gacantooda soo gali weysay intii kale way soo gashay Djibouti markii ay aragtay in dibindaabada ay wadaan dowladda Djibouti waa iyadii iska toortay oo maxkamadda caalamiga gaartay marka runtii dagaalkaasaan ku jirnaa marka waxaan khubarada siyaasadda aad u andoroso waxay qiimeeyaan roobla in uu ku dhacay dibindaabadaas la dhigaya isaga oo aan rumaysanahay in uu nin Soomaali yahay waxa ku dhacay dibindaabadaas taasi marka ma oran kara inay ugu wacan tahay fahamkiisa siyaasadeed oo urdun iska ah ilaa ninkan siyaasadda laguma aqoonine isagaaba sheegay inuu mashaariic iyo inka ka soo shaqeeyo oo qura maadaama arrinkan uu faham qoto dheer u baahan yahay waxyaabo badan baa maartay u sahlaya inuu dabinkaas ku dhaco waxaa ka mid ah khibradyaradaas sheegtay waxaa kaloo ka mid ah rag uu saaxiibo ka dhigtay uu isaga uusan ogeyn laakiin ragga dibindaabadaas ragga loo soo diray oo shaqeey waayo waxooda uu socon waaye ayaa dabinkaas ayuu saaxiibo ka dhigtay oo siyaasiyiinta mucaaradka ee magaalada Muqdisho jooga ma garata marka maadaama doontii nabadii nolol uu ku soo biiray ama dawladii waqti xilaadeedkeeda gabagaba ahayd doorasho dalka uu ku jiro soo habooneen in ragga uu shaqada kula soo biiray maamulka kaga horeeyay madaxweynaha oo kale oo magacaabay 4 sano iyo wax ka dheeri ahna shaqada nidaamka kaga horeeyay inuu la tashto maadaama isagu ninka kan wixiisa bilow iska ahaayeen siyaasadana alfaxmaalo uu ka ahaa waxaa keenaya in uu la tashan waayo saaxib muxuu ahay nimanka kan ay soo dirsadeen ama muxuu ahay la shaqeeyo dadka dowladda wadanka Soomaaliya nabadda u diidan kamid ah siyaasadda gurcan ku shaqeynayo ayaa wuxuu isiri raggan oo mucaaradka soo dano isiri dabinkii marka oo Soomaaliyeysan oo meel dheer laga hagayo ayuu ku dhacay marka nimankaas ayaa gacanta ku dhigay already waa laga jaray marka waa laga dhaxadlaya ninku dawladii uu ka tirsanaa waa laga jarayba already dawladii uu ka tirsanaa waa laga jaray markaas waxaa la dhigay meel banaan ah lagu helay markaas wax alla waxa dabacad uu gacan galay marka waxaan leenahay ninka kan muxuu ahay waxaa la yiri war adiga muxuu ahay awoodda Soomaaliya adaa iskale adan uu wareejiyay dawladnimada Soomaaliya adaa laga rabaa war hebel xilka ka qaad sidaan yeel wasiir hebel bedel wasiir heblo bedel marka la taliyaal waxa uu noqday dawladihii oo farmaajo 4 sano oo ka ilaalinaya wadanka Soomaaliya oo ka ilaalinaya ayaa marka ninkan gacanta u galay marka sidaas waxa keentay in la iskhilaafo markaan u soo daadego khilaafka dadka waxay arkeen markii hadda tan waqtiga dhow ay dadka arkeen laakiin
khilaafku uu ka horreeyey ma garatay waa gartay ugu dambeyn qaybihii dambe ku jirna ee barnaamijkeenan gaarka xiisaha leh ee falanqaynta dibdhiska dowladnimada Soomaaliya mudane siyaasi aqoonyahanka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Marcad waxaa jira rag loogu yeeray dhurwaaga siyaasadda Soomaaliya ama waraabaha siyaasadda oo ay ugu horeeyaan kooxda Damul Jadiid markaasina ay u dirbantumanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay in dalka qalalaasa uu galo walow shartoodii iyagu uu ku celiyay marka ragga kan iyaga ah Soomaaliya marka inay ku soo laabtaan taariikhdoodiina waa la ogyahay miyay xaq u leeyihiin runtii horta waxaan ku sheegaynaa magaalada Muqdisho iyo inta ku hareeraysan muxuu ahay xukunka markii ay hayeen dhibaatadii ka dhacday waa la ogyahay haddii ay tahay dhaqaalaha haddii ay tahay amniga haddii ay tahay muxuu ahay dhulka Soomaalida dhulka yani waxaa la boobay hantidii dawladda ayaa la boobay ma garatay marka u malaynayo shacabka Soomaaliyeed inay xiis u qabaan marka shacabka Soomaaliyeed ma hadda waxay way ka yimideen waxay wax ku dooran doonaan fikir saxan oo muxuu ahay horumar wato ay dadka ku daawanayaan ninkii shalay boobayay oo dhulka dhaqaalihii Soomaaliya aruursaday hantidii Soomaaliya boobay maanta xiiso uma qabaan in maartay ay mar labaad doorasho ugu yimaadaan marka u malaynayo inay soo noqon karaan waxaan leenahay iimaanka Allah idin geliyo dadka Soomaaliyeedna way badan yihiin insha Allah aad u mahadsan yahay kaasi waa falanqeeyo siyaasadeed oo kala rogoroga arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo gobolka mudane siyaasi Cabdiraxmaan Idris Cabdulle Cabdiraxmaan aad baan ku salaamayaa daawadayaal intaasina waxa ku dhamee qaybteeni xiisaha badneed ee falanqaynta siyaasadda Soomaaliya iyada uu ka qayb galay siyaasiga Soomaaliyeed ee wadaniga ah isla markaana ummadda Soomaaliyeed u aftiirinayay dagaalka dowladnimada Soomaaliya lagu hayo ee shisheeyaha dusha ka riixayaan iyada oo la adeegsanayo kooxo qowleysata oo siyaasadda Soomaaliya ka macaashayay dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyay qaybtan inta ayay ku dhantahay muuqaalka leeganoo saar oo wixii aragtideena inoogu soo gudbiya qaybta hoose ee faalooyinka iyadoo aan tixgelin gaar ah siin doono aragtideena kala gedisan ee aad noo soo gudbisaan haddii gooraale waa inoo barnaamijyada kale xiisaha badan gobolba iyo goor kasta waa inoo shacabka TV nabadgeliyo